anigoo jiif caaqil Faysal Maxamed Cabdi Soofe madaxweynaha qaranka waxaan leeyahay wasiiradii aad gobolka u soo dirtay ee amniga iyo diiwaangelinta iyo arrimihii Puntland ee xadgudubka ka hadli lahaa gobolka waxay u yimaadeen inay reer ku soo duulaan oo dhaqankiisa farageliyaan wax kale ay u yimaadeen ma jirin hadal maalin dhoweed halka ka baxay wax beesha garxajis ee bari wax ka quseeya ma jiraan beentii awal bay isku shushuban jirtay wasiirada iyo wixii la halmaala ayuun bay ahaayeen anagu haddaan reerka la sheeganahay ama aanu garxajis banahay ama aanu ka barinahay gudidaanu aqoonsanahay waa tuu reerku ku samaystay daalo ee uu ku samaystay gacan libaax ee shirkii dhaweeda muddada ugu kordhiyay taas baanu ognahay aqoonsan waxaanu aragnay suldaan dhex fadhiya oo leh ina sulub nagama dambeeyo oo dawladdu nagama dambayso hadda madaxtooyada maxaa ku geeyey waxaanu diraynaa baaq nabadeed oo aanu u dirayno dadka walaalaha ah ee wada dhashay ee reer Burco ee shaqaaqadu ay baryahan ka socotay baaq nabadeed baan u diraynaa waxaan leeyahay nabadda u hogaansama gudida la sheegay ku xiriirsanayd madaxtooyada maantidooda waxaan ka maqlay iyagoo leh dawladda dabadan kama wadin gudida dawladda ma sameyn iyaguna madaxtooyadii bay ku xiriirsan yihiin iyagiiba madaxtooyadii ku xiriirsano baastada loogu karinaya markaasay ku leeyihiin gudida dawladda ma wado waaba muuqataan madaxtooyadii baa ku xiriirsan tihiin oo idinkiiba isku cadeeyay dadka been haw sheegine hadalka waxaan kaga baxaynaa oo idin leenahay waan idin ducaynaynaa kamida waayeelka waxgaradka aqooyahanka magaalada Ceergaabo maanta warbaahinta la hadlay ee gaashaanka u daruuray gudi sheegtay inay yihiin gudida beelaha garxajis waxaana sidoo kale xubnahaas ay dhammaantood ay taageero u muujiyeen gudida uu hogaaminayo Suldaan Cadde Gude iyagoo dhinaca kalena ka hadlay xaaladda colaadeed ee gobolka Sool iyo waliba qaybo kamid ah gobolka Togdheer gaar ahaan dhinaca koonfurta halkan saaka waxaan ku qabanaynaa shir saxaafadeed annagoo beesha garxajis bari marka koobaad horta waxaanu baaq nabadeed u diraynaa labada beelood ee walaalaha ee shaqaaqadu ka soo cusboonaatay gobolka Togdheer waxaanu leenahay beelaha walaalaha waxaanu ugu baaqaynaa nabadgelyo intii dhimatay Ilaahay u naxariisto inta dhaawacaan Ilaahay caafiyo waxaanu leenahay hubka dhiga oo nabadda qaata dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho gobolka Togdheer iyo gobolka Laascaanood waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo niman mahal dhaweyd saxaafad qabtay oo ay dawladdu dabada ka riixaysay oo madaxtooyada lagu ururiyay baanu kaga hadlaynaa marka koowaad waxaanu leenahay horta nimanka halka TV-ga ka hadlay ku hadlay afka garxajis bari wax allaale wax ka jira ma jiraan waa beentood waxa ay sheegeen garxajis barina ma matalaan garxajis bari wuxuu leeyahay dhaqan cid baa matasha cid baana wuxuu tiraada gobolka Sanaag markaanu joogno laba qof baa garxajis bari matala oo hadalka noo yiraahdo chief caaqilka guud ee habar yoonis bari garxajis bari iyo gudoomiyaha guud ee garxajis bari cid aan ahayn oo ku hadli karta afka reerka ma jirto anigoo chief caaqil Faysal Maxamed Cabdi Soofe madaxweynaha qaranka waxaan leeyahay wasiiradii aad gobolka u soo dirtay ee amniga iyo diiwaangelinta iyo arrimihii Puntland ee xadgudubka ka hadli lahaa gobolka waxay u yimaadeen inay reer ku soo duulaan oo dhaqankiisa farageliyaan wax kale ay u yimaadeen ma jirin iyaga shaqaaqa wada iyaga dadka isku diraya madaxweyne dadka yaan lagu dirin dadka aad xulatay ee xilalka u dhiibatay ee gobolada imanaya madaxweyne la xisaabtan baanu leenahay hadalla maalin dhoweed halka ka baxay iyo hadallada ka socda dhulka dagaalada ayay ujeedadu tahay hadal maalin dhoweed halka ka baxay wax beesha garxajis ee bari wax ka quseeya ma jiraan beentii awal bay isku shushuban jirtay wasiirada iyo wixii la halmaala ayuun bay ahaayeen dadkii la ururin jiray hadba meel bariiska loogu qaadi jiray kuwa uun bay ahaayeen anigu waxaan ka mid ahay gudidii soo saartay haddaan doorasho la gelin oo doorashada la ogolaan meel garxajis leeyahay doorasho ka dhici mayso 9 nin baan ku jiri ilaa maalintii arrintaas soo baxdayna oo aanu 13 casho qabanayna wax anagu bilayska iyo dawladda hoose dad ka sareeya oo wax matala maanaan ogin waxaanu diraynaa baaq nabadeed
oo aanu u dirayno dadka walaalaha ah ee wada dhashay ee reer burco ee shaqaaqadu ay baryahan ka socotay baaq nabadeed baan u diraynaa waxaanu leenahay aqligu ha shaqeeyo nabadgelya naasna nuuga leh colaad weynu aragno khayr ma leh walaalayaal colaadaa joojiya laascaanood halkuu maraya waynu ogna ilaah baynu u baryaynaa ilaahay inuu nabadgelyo ku soo celiyo reerka layaa garxajis wuxuu leeyahay guddi adda gudoomiye u yahay guddidaa muddadii waa loo kordhiyey dalana waa lagu doortay gacan libaaxna waa lagu doortay shirkii ugu dambeeyana muddadii baa loo kordhiyey lama ogaa cid badashay iyo meel xilka lagaga qaaday qoladan hadlaysay sidaa cuqaashii iga horraysay ay sheegtay garan mayno meel allaaliya meel ka socdaan garan mayno gobolka aan ka soo jeedo gobolka togdheer in ay nabadgelyada ilaashadaan oo nabadgelyada aad u ilaashadaan baaq nabadeed baan u diray in xabad joojinta sameeyaan waxaan ka hadlayaa guddi baasto haddii ay tahay guddi ay reerku doorteen waxay ahaan lahayn inay ka qayb galaan nabadeynta burco waad aragtay iminka waxaa jooga guddoomiye cadda gude isagaana hawsha wada gacantana ku haya markaa waxaa taa ku caddaynaysa inuu muuse musawir beenan la gelayo oo aanu ahayn inuu reerka kala jabiyo laakiin muuse waxaan kuu sheegayaa adiga wasiiradaadaba xisaab khaldan baad isku dhifateen marka waxaan leeyahay inaad sulub oo nin kasta wasiirka reerkiisa ayuu u shaqeeya adna maaha in reerkaaga lagu xanto layidhaha wuu kala duminayaaye inaad sulub waxaan ku leenahay ka joog waxaa ku jirtid oo dadkaaga iyo ummadaada u nax oo magacaagana ilaasho wax horena waa lagugu xamanaya dee xanta iska dah guddi halkan ka hadashay oo aanaan garan weyne meel allaale meelay ka hadlayaan oo aanu garan weyne meel allaale meel lagu doorto annagaa salaadiinta gobolka sanaaga maanu ogin lamaanu socon meelay ka hadlayaan ma arag waxaanu aragnay nimankaasoo maxaabiisa oo madaxtooyada ku xeraysan oo ka dhex hadlaya baanu aragnay waxaanu aragnay suldaan dhex fadhiya oo leh ina sulub nagama dambeeyo oo dawladdu nagama dambayso hadda madaxtooyada maxaa ku geeyey garxajis markaanu nahay annagu waxaanu ka hadalnaa beerta xorriyadda annagoo xor ah halkaanu ka hadlaynaanu ka hadalnaa beerta xaaji aadan baanu ka hadalnaa ta ismaaciil muuse aanu ka hadalnaa ta dawaare aanu ka hadalnaa ta doodaanu ka hadalnaa si sharciya baanu anagu hadalnaa dawladdii dhammaydna waxay ku quusatay oo xooggeedii noqday inay tidhaahdo garxajis baanu kala jejebinaynaa oo lacagta dul dhigno oo hadda meel iyo madaxtooye iyo hudheel ay qada ugu qaado taa waxaan leeyahay waxaa ka wanaagsaneed oo idinka ajaroonayd maatada berbera iyo mulaha berberale waa marawxad baa nala ku babinayaa inaa leerka kaga bixisaan bay ahayd taasa ajar ka heli lahaydeen taasi ajar ka heli maysaan guddidaa la sheegayo meel allaale meelay ku jirto iyo meelay ka dambaysay ma aanu hayno hadday aqal madaxtooye tagto dee dawladdaa wadato ayaantii dhowad sawirkoodaanu arkaynayo dee aqalka madaxtooyada ee cergaabay joogeeno waxaanu ka hadlaynaa uun kowdii bisha nimankii lagu ururiyey madaxtooyada gobolka sanaag kuwa hore ee la tilmaamo magacooda anugu ma saxo ah ee la tilmaamay madaxtooyada hargeysa lagu sameeyey iyo kuwa halkan ka hadlaya kuwa taageeraya cid kale maagayey labada midna annagu ma aqoonsanin kamana war hayno waxaanu laakiin u ognahay oo dareensannahay dad uun dawladdu samaysatayoo ay cid ay jejebinayso oo maagayso oo haddii alla qadarkeeda ku leeyahay dibdaabiyanayso u samaystay annagu haddaannu reerkaa la sheegaynahay ama aanu garxajisba nahay ama aanu kabarinnahay guddidaannu aqoonsannahay waa tuu reerku ku samaystay daalo ee uu ku samaystay gacan libaax ee shirkii dhoweeda muddada ugu kordhiyey taas baannu ognahay aqoonsannahayna libaax maandhaysna iyagaa ka haysta garxajis oo dhan meel kasta uu jeego dal iyo dibadba waxaa haysta guddidaa cadda gude hoggaanka u yahay waxaan kaloo hambalyaynayaa aad iyo aad labadii xubnood ee iskaga baxay guddidaa dambe ee gacanku rimiska ah ee dhowaan la sameeyey labadaa xubnood oo khaatumadii alla waafajiyey aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aad baana u salaamaya nabadeed gobolka togdheer iyo sool waxaan leeyahay beelaha dega ee walaalaha gobolka togdheer war nabaddu waa muhiim wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan leeyahay nabadda u hoggaansama guddidaa la sheegayay ku xeraysnayd madaxtooyada maantidhooda waxaan ka maqlay iyagoo leh dawladi dabadan kama wadin guddida dawladi ma samayn iyaguna madaxtooyadii bay ku xeraysan yihiin iyagiibaa madaxtooyadii ku xeraysanoo baastada loogu karinayaa markaasay ku leeyihiin guddida dawladi ma wado waaba muuqataano madaxtooyadii baa ku xeraysantihiin oo idinkiibaaba isku caddeeyey dee dadka been wax
been haw sheegine hadalka waxaan kaga baxaynaa oo idin leenahay waan idin ducaynaynaa Cali Daahir